الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح wanaagsan subax nin kastaba meesha uu joogo ayaan ku salaamayaa Ramadaan Kariim dhammaantiin halkan waxaan ka hambalyaynayaa Gas Films ninka la yidhaaho ee Nairobi jooga Kenya caasimadda Kenya jooga Nairobi hambalyo waxaan ogeysiinayaa dadka maaragtay ka soo jeeda qowmiyadda Ciisaha ciisuhu dee ma yaqaanin maaragtay dad 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 beenaalayaala inay maaragtay la tirsadaan buuggan wixii lagu wada sheegayo o dhan raggaas Soomaaliyeed ee maaragtay ciisan ahayn kuwii maaragtay Idoor iyo maaragtay Samaroon ee buugga wax kasta ku sheegayay midna ma ahayn labadan maaragtay aqoon-yahan Gas Films iyo maaragtay Diini Darwiish kolkaa buuggaa bay dhammaynayaan kolkaa waxaan ka codsanayaa dadka qowmiyadda ka soo jeeda ee ciise inaad maaragtay Gas Films aad la socotiin buuggan bay wala akhriyayaan oo wixii laga wada sheegay ka wala daba tegayaan ee been tahaa annagu waan ogeyn inay been tahay laakiin inaan la tirsanno waa laga fiican yahay nin weynoo been sheega ood garanaysin wuxuu ka dhigan yahay kolkaa beentii oo dhan baa laga wala daba tegey waad la socotiin kolkaa youtube-ka Gas Films halkaa kala socda buuggaa ayaa la dhammaynayaa oo labadaa maaragtay ninkaa tiktokerke ee maaragtay kaa yaree maskaxda ilaahay siiyey ee Diini Darwiish iyo walaalkay Gas Films youtuberka weyn ayaa maaragtay buugga akhriyaya oo dhammaynaya ilaa maaragtay baashada ugu dambaysa dhammaynaya baashada buugga ugu dambaysa haddii ilaahay laga helo waa 281 iyakaa dhammaynaya diyaar waxay yihiin inay dhammeeyaan oy beentii ka wala daba tegaan kolkaa insha allah xaggaa kala socda oo like iyo shareka siiya oo la socda youtuberka Gas Films iyo Diini Darwiish Ramadaan Kariim baa inaga leeyahay Soomaaliya oo dhan cabdalla xaaji cusmaan ceeleyana u soo duceeya qoraageennii weynaa ilaahay maskaxda u daayay caafimaadka isagii qorayaasha fiican oo dhan ee wax maaragtay beena buugaanta ku qorin wax badanoo waxaa lai sheegaya dad buugaan qora oo ka soo jeeda dadka buuggan ku dhegan inay been ka sheegaan buugaantay qoreen waana laga daba tegayaa kolka hore waan aamusnayn buugaantay qoreen dad taariikh ku lahayn Jabuuti ayay ku soo qoreen buugaantooda rag qoraa isku sheegaya waana laga daba tegayaa kolka hore waan aamusnayn laakiin inaan laga wala daba tego ayaan u soo jeesanay insha allah waka wax badan oo qalada ayaa soo baxay rag buugaan qoray oo qoraa iska dhigayay kolkaa cabdalla xaaji ilaahay maaragtay kuwa beenta sheegaya kuma jiro oday sharaf leh oo duca qaba oo aabaheen oo kala oo qoraaya ha loo soo duceeyo nin kastoo fiican baa loo soo duceeyo nin kastoo mas-uul oo fiican ha loo soo duceeyo nin kastoo maaragtay aaqila jeef aaqiloo fiican baa loo soo duceeyo ugaas mustafe maxamed ibraahim ugaaska ciisaha qowmiyadda ciise iyo ugaaska Soomaaliyeed iyo gandadiisa ha loo soo duceeyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed inta fiican ha loo soo duceeyo inta xun duco ma waajibaan kolkaa insha allah dadka mas-uuliyiinta bisha Ramadaan dadkiina u naxa dhulkiina u naxa calankiina u naxa mas-uul kastaba meesha uu joogo walaa Soomaaliya ha joogo walaa Jabuuti ha joogo walaa Ethiopia ha joogo qowmiyadda Soomaaliyeed baan sheegayaa ee mas-uuliyiinta dadkiina u naxa hooyooyinkiina u naxa aabayaashiina u naxa ubadkiina u naxa wax dhigtay ha noqonina mas-uul kolka meesha laga qaado ilaahu ha nagu soo celin leedhaho amba inta uu joogo ilaahu meesha ka qaad leedhaho iska ilaaliya mas-uuliyiinta Soomaaliyeed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaalidu ha noolaato ramadaankiisa barwaaqiya baraaro waalidadiin dhalay iyo kuwii nala dhashay dhammaantood allah u naxariisto annakana warimayna allah nooga daba naxariisto dumarka hooyooyinkeen iyo dumarkaan u dhaxnay ee awlaadda noo dhalay ilaahay maaragtay ifkana nabad aakhirana janna firdaws ha geeyo
dumarka Soomaaliyeed oo dhan dhammaantood dadka dumarka ku dhegana Ilaahay ha ka qabto Ilaahay ha ka qabto ee dumarka ayaan kasta ka oohinaya ee social media aan kaga oohinaya war isla xishooda rag baa tiine dumarka ka xishooda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu